bulshadii waxa la weydiiyey istiftaagu waa maxay bulshada waxa la weydiinaya markhaataan idin weydiinay kaayagee xaq u leh inuu dadka xukumaa bulshadii la weydiinaya sanaaduuq ikhtiraac macna kale ma leh waa dad bulshadaynu xakam ka dhiganay yidhi oo ina kala xukumaya maxay nagu kala xukumaya waar kaayagee xaq u leh bay leeyihiin inaynu xukunno wax bulshadu markaa waxay leedahay dacidaasaa xaq u leh igu ridaysa foodka inaad ku ridaysa macnihiisu waxa weeyaan xaq u leh inaad xukunto waa shahaada shahaadaduna dee islaamka meel bay ka joogtaa aada u khatara shahaadatu zuur markhaati beenaaluhu xisbi aanad ku ogtay inuu dad khiyaamaynayo qiyaamaha markaad ugu riddo uu ninkii meesha fuule uu wax dhibo aakhire qiyaamaha kuwa loo qabsanayaad ka midti wuxuu dhibay keligii maaha waayo waa taqaanay waana la garanayay xaggu wax u wado adaana codka kan siiyey macnaheedu waxa weeyaan adaa ka raalli aha in dadka kan la dulmiyo oo sidatan u siiyey qiyaamaha ilaahay adigu wax kaa weydiinaya wuxuu gubay ninkaasi oo dhami waayo waa mawqifkaagii siyaasiga ahaa ayaad istaagtay qofka muslimkii mawqif siyaasi oo cad waa inuu yeeshaa shahaadada waman yaktum ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya qofka shahaadada qariya dembiga uu leeyahay siday u xuntay qawlat الzuur baa qur'aan ayuu xadiidka nebigu alayh الsalaatu wasalaam shahaadat الzuur baa laynoo tilmaamaya intuu wax ka digay nebigu isagoo jiifa inuu soo kacay isagoo aad uga digaya shahaadat الzuur istiftaagan dadka la weydiinaya waa markhaati waa dad la leeyahy war xakam noo noqda war kaayagee gar leh yaa mudan inuu dadka xukumo kaayagee mabda' fiican kaayagee cadaalad wada